qaar ka mid ah ehelada samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon oo fariin hawada u soo marisay maamulka Muuse Bixi Cabdi adaba daawadayaal halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa fariinta ay soo direen ehelada Cabdimaalig balse waxaan idinka codsanayaa dhamaantiin inaad muuqaalkan like saartaan si uu u baahdo fariinta wariye samafale xaq u dirir Cabdimaalig Muuse Coldoon oo habeenkiisii 12aad ku hooyanaya xabsiga Mandheera kaliya muuqaalkan like saar alxamdulillaah salaatu wassalaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ma bacdu bahda saxaafadda waan salaamayaa halkan waxaan koornayaa laba kelimo mid madaxweynahan codsi u dirayaa midna waxaan u dirayaa nin la yiraahdo Cadami waxaan horeysiinayaa codsigayga madaxweynaha mudane madaxweyne arrinkan Cabdimaalig Muuse Coldoon sida la og yahay Cabdimaalig Muuse Coldoon waa nin samafala ah waa nin culimo ah waa nin wariye ah wax dambiya oo maanta cad oo uu ka galay dalka ma jirto cid gaaro aflagaadeeyay madax iyo majo shacab midna ma aflagaadeyn waxa lagu xiray war halka dulmi baa ka soo socday dulmiga ah laga hortago buu yiri taasina waxay u muuqataa madaxweyne wadadii siyaad barre qaaday baad qaadaysaa mar haddaad mas'ala diiniyo oo lagu dhawaaqo aad ka hor timaado raadkii siyaad barre qaaday baad qaaday oo aad dadka ku xidho oo lagu joorgareeyo oo lagu aftuubo oo la bilaa maxkamad lagu kaxeeyo waa khalad Cabdimaalig 10,000 oo indhahoodii weey 10,000 oo caamiya lugahoodii weey 10,000 oo waalan aqligoodii weey intaas oo makhluuqa oo Soomaaliland oo baahan ayuu walaalaha muxsiniinta wax u weydiinay xukuumadda iyo wasiirada iyo golayaasha midna ma ogeyn iyo shacabka mooyaan inta midna ma ogeyn dadkaas uu ahaa hooyo iyo aabe oo muxsiniinta wax u weydiinayay dadkii daaday kugu soo fakanaya waxaan ka codsanaynaa waxaanu nahay eheladii waxaanu nahay dadkiisii wuxuu la darsay xabsi waxay la tahay inta aad joogtay waa markii labaad ee la xidho waxaanu doonaynaa madaxweyne si islaamnimo sharaftiisa iyo taadaba inaad dhowrto inaad sii dayso ayaanu ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baanu ka codsanaynaa iskuulka abaarsana ma aha waa iskuul Soomaaliland iskuul reer leeyahay ma aha Soomaaliland hadduu xumaadana Soomaaliland ka xumaado hadduu wanaagsanaadana Soomaaliland buu wanaagsan yahay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne ninka inaad xorriyadiisa si haddii alla ka dhigo u soo celiso halkaasaan ku dhaafayaa madaxweynaha waxaan u gudbayaa ninka la yiraahdo Cadami oo 1986 waxaan joogay Hargeysa heeriyada aadaan iska rogan qamaan haanta lagu saaray hadalba kuuma yaale maxaad gabay ka hooyaalin adigoo raadkii Morgan gurigaaga joogo ayaad maanta waxa tiri waxaan dilayaa Cabdimaalig maxaad u dili weyday waadigii xasiigta ku cunayay harta shiikha aruurihii Morgan baa gurigaaga jooga Cabdimaalig hadii la dilo haduu dhinto dhereg ninka u horeeya la dilayaa waa adiga waa cadaan waa Cadami ku bushaarayso madaxweynahana waxaad ka dhigtay nin turabiliisan oo qabaliyista aad ka dhigtay waayo xaq bugumaad lahayn in madaxweynaha ta gudub hadasho iskuulkana kaliya ma lihid mar labaad baan ku sheegayaa Cabdimaalig haduu u dhinto dhereg anigu ehelkiisii baan ahay haduu Cabdimaalig dhereg u dhinto ninka loo dilayaa waa adiga waa mid waxa tiri dhaqan xumo iyo caar baa wax la yeelay wasiirkaagii barwaaqo hablaha garxajiis wuxuu yiri waa dhilooyin hablaha suweer awal Cabdimaalig waxba kama sheegin kuwa xabuusheed wax kama sheegin kuwa habar yuunis wax kama sheegin afkaaga iyo dhagahaagu waana ismaqlayn waana xishoonayn waxaan kuugu darayaa waxa tii dadka Cabdimaalig u hadlay waa reer koonfur war ma garxajiis iyo xabuush baa noqday reer koonfur oo adaa Soomaaliland noqday saaq dhaba maada noqday adigana intaas ayaa ka filan Cabdimaalig oo Muuse Coldoon waa taqanin wuxuu ku shaabadaysnaa samafale nin samafala abu aha oo umada aabbe iyo hooyo oo kale u ah wuxuu lagu yaqaanay inuu yahay samafale ninka samafale markuu yahay wuxuu ka mudan yahay bulshadiisa uu ku dhex nool yahay inay ixtiraamaan karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo noloshiisa inay ixtiraamo ayuu mudan yahay isaguna wuxuu mudan yahay in uu samafalnimadiisa uu ku shaqayn jiray si ay tahay uu ugu samafalo mujtamac uu ku nool yahay
isagoo aan cabdimaalig oo muuse coldoon haba yaraatee ka gelin waddanka somalilan waxa la yidhaahdo dembi qaran waxyeelin dembi ka gelin ayaa waxaa lagu xidhay wax dulmi ah ayaa lagu xidhay arrintaasuna waxay ku tahay magaca soomaaliyeed ama magaca somalilan ama dowladaha islaamka ah oo dhanba ee ahlu tawxiidka ah waxay ku tahay dhib ayay ku tahay iyadoo lagu eedeeyey arrin diin ah oo uu ka hadlay diin ayuu ka hadlay oo arrintaasu kuma wanaagsan dhaqan xumada waddanka ka jirta sheekh cabdimaalig waa nin muwaadin ah oo somalilander weliba qof kastoo muwaadinina xaquuq iyo waajib labadaasuu leeyahay xuquuq buu leeyahay dee in la ixtiraamo waddankiisa uu nabadgeliyo iyo ammaan iyo xuquuqdiisa ku helaa ayuu leeyahay waajib buu leeyahadoo wax alla wixii waddankaa dhibaato u keenaya qof kastoo inaga mid yihi rag iyo dumar waa inuu dee meeshiisa ka awdo marka muwaadinkaas dee wuu hadlay wuxuuna ka hadlay wax markaa wuu arkayoo munkar wuu arkayey waana waajib in la baadho wixii munkar maaragtay ummadda wax yeelaya in la baadho oo dee laga hadlo dadkana kama afdheerayna intaa waa la hadlayay ummadda oo dhamay wax walba way ku hadlaysay marka wadaadkan waxaad moodaa in si gaar ah loo bartilmaamsanayo dhowr goor baa la xidhay weliba si fool xun oo ma garanaysaa aad moodo argagax leh oo heelkiisii dadka dile qaatulkaabaaba dadkeeda loo ogolaadaado la ogaadaado waxay ku sameyn yihiin la ogaadaa laakiin maxaan ku dhahay wadaadka kan dee runtii waa arrin naxdin leh oo murugo leh marka madaxweynaha ummadda somalilan madaxweyne waxaan leenahay dee ummaddaa dhan baad mas-uul u ka tahay waana la weydiinayaa waqti yar baana inoo wada hadhay dhammaanteenba oo akhiraynu soconnaa dee waxa weeyaan nooc kastoo ummaddu leedahayba mas-uul baad ka tahay waxaan ku leenahay arrintaa hoos u eeg oon kaa codsanaynaa inaad arrintaa hoos u eegto oo ninka muwaadinka arrintiisa dee aan maaragtay hoos loo fiiriyo xuquuqdiisa leela halkan maqsadka laga leeyay madaxweyne adigoo salaaman waa laga hadlay odayaashii iga horreeya ka hadlay maqsadku waxa weeye cabdimaalig xadhiggiisa weeye xadhigga cabdimaalig marka laga hadlayo waa cadaaladda weeyaan waxa meesha lagaga hadlaya cadaalad baa laga hadlaya cadaalad ha la helo madaxweyne cadaalad haddii la waayo madaxweynena ma jirayo xukuumadina ma jirayso dadweynena ma jirayo waxaanu ku leenahay madaxweyne madaxii ugu sareeyey dalka ayaa tahay cadaaladda ilaaliyo cadaaladda ilaali baanu ku leenahay madaxweyne laakiin adiga madax waxaanu ku leenahay soo daa ninka cabdimaalig dadkaa kumayaalka ah ee u qadhaabaya ilaahu diray kuwaad ka mas-uulka tahay weeye ilaahay kaala xisaabtami doona qiyaamaha kuwii uu kaa furtay meeshoodii bay dee caawa ay fadhfadhiyaan waxaanu ku leenahay xil buu kaaga gudbanaya soo daa madaxweyne annagoo ah eheladii cabdimaalig halkan waxaannu farriin uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweyne marka hore waxaannu kaa codsanaynaa cabdimaalig xornimadiisa in loo soo celiyo